والصلاة والسلام على رسول الله. وحربينا كهذا ما أنت برنامج جير أو كسابسن ويلكي قبل الربيع يسبوع السدان أمام هذا لوضع لنا أو ربع مثل إنه السدان مجور من فوق يا رجال محل وقبل هاي حين يسكتسه ما أنت حهر مرين دونا قيد تمركه أدي الله سبحانه وتعالى كرام نقوم كسوق بدونا كلمة غير أمام هذا دور صدق ويا أو كوبا هذا كوبات ويلكي أما قبل ما يسبوع السنة وحلو قبل هاي إنه قبل اللي بودي يا رجال sida guriga marka la dhisaayo oo kaleeto loogu diyaar garoobo oo loogu diyaarsado sida dhagaxaanta ciid lagu dhisaa oo kaleeto qof walba wuxuu u baahan yahay inuu u diyaar garoobo ama uu isku dhiso sida uu reerkaas maxay uu la falgeli lahaa ama waxyaabaha looga baahan yahay in isaga dhiso gabadha markay rabto inay guursato waxa looga baahan yahay in iska dhisto dhowr qodob waxa ka mid ah inay aqoonta iska dhisto dhinaca maadi iyo diini labadaba inay iska dhisto looga baahan yahay marka aqoon la yiraahdo waxa soo hoosgelayso inay taqaano waajibaadka ayada iyo saygeeda ka dhaxeeyay kii uu asaga ku lahaa iyo kii ayada ay ku lahayd inay garan karto diinaha maadi haddii la dhahana ayadana wax waliba waxay ka caawinaysaa laba aqoonta labada dhinac lagama maarmo way iskaraan laakiin waxa muhiim ah gabadha inay iska dhisto diiniga marka xigto aqoon markii loo waxa soo hoosgelayso inay gabadhi taqaano sidii ay zoojkeeda u soo jiidanay qalbigiisa cuntada u karin lahayd inay heeday taqaano oo sidii cunto macaan badan u karin karto qalbigiisa soo jiidanayo waxa kale looga baahan yahay inay garan karto isticmaalka ereyada qalbiga u wanaagsan inay garan karto sidii gurigeeda u hagaajisan lahayd gabar kasta way taqaanaa cunto karis laakiin cuntada la karinayo ee la maahan baasto bariis iyo canjeero kuma koobno taas saqiirka dhashay ku tawo garanayaan waxa loo baahan yahay at least gabadha marka ugu yar tahay inay ka wadato certificate cunto kariska oo wax waliba ka diyaarsan tahay cunto kariska nooc walba ay taqaano maadaama cunto kariska ay ka mid tahay waxyaabaha lagu hanto ama lagu heeday lagu soo jiisto qalbiga ninka الحاجة مزوج كده يكسر جدا كتير إنه يقدر يسحب كسر يسحب عارفين إنه هذا هو اللي بناء ولا يقدرون يسوون مهم هل كسر عن كذا هريا حد أخوانته وحكى له لوبا هنا هيقدر إنه يسكت يقول جالس سمرك يتكتو ما دام إنه لا قصد بالله ويسوع إن هذا قف قصد يقول جد أرجع إنه لا خد سنة يسوع ويستدعوا هراي قصة عارفين يقول هو يقول بس وحلوبا هنا يسكت حق أخلاق ده كل ده شو سيد أخلاق اللي هو ناجين مهد هذا الله أفكار ذا كبحي هو ناجين مهد يوحي لم يدبر sida inay zoodkeeda u qalbi mudlaato ay noqoto mid u jajaban oo jilacsan marka banaanka libax ka tahay waxa la marka gurigeeda joogtid inaa noqotid yaanyoor rabaayadeysan oo kaleeto ama midka ugu rabaayadeysan waxa rabaayadeysan inaa ka mid noqotid oo u jilacsan waxa loo baahan yahay in aqoonta diin iyo maadi ay ka dhisan tahay si aad u soo saartid hadhowtid ilmo wanaagsan tarbiyadooda wanaagsan tahay mustaqbalkana noqdo ilmo la higsado oo la yiraahdo alla ilaahay kun waa fi mustaqbalka bedeli lahaa jiilka hadana وحلو بهاي قبلنا إسكتشكو عذابته يا أخلاق من هذا أيضا هذا وحياة الأحمر أيضا زوج كذا إنه يقولي وكذا وحول اللي بينه خدام وحنا هذا حديدا وأيضا يا أخلاق لها إجرام وحلو بهاي هاي إن قبل أنت كرس كنا ولي إتقانه ما دام أي كم صحيح أنت كرس كف وحياتها الوجه أنت قلبي إنك يا رياض سيد أو كلاته وحول اللي بقول ونحسن إنه بركة محايلة أخوان زي حبوبها أنت ما كرجي سنة guurka iska guursan maahan waa inaad hore meelo badan wax ka dhigtaa aad u leedahay aqoon sida aad zoojkaaga la dhaqmi kartid cunto kariskaaga iyo wixii la mid ah cuntadana lama rabo baasti bariisi bilaash inay ku ekaato maalin waliba waa inaad samaysaa cunto cusub oo maxayda uusan hore u arag zoojkaaga si aad qalbigiisa u hanatid inaad isticmaashid ereyo wanaagsan u wanaagsan qalbigiisa guriga sidoo kale hagaajintiisa iskama hagaajiyo wuxuu u baahan yahay aqoon in la bartaa inaad lacag ku bixisid sida maxayda reerkaaga aad u hagaajisan lahayd ama aad si wanaagsan oo la dhaqmiyo zawjkaaga waa muhiim maxaa yeelay gurigan ma ahan mid beri dambe ah waa mid sanado ah iyo inta noloshaada ka dhiman aragti inaad ku noolaatid waa muhiim marka inaad iska dhistid waxyaabo aad u tiro badan waxyaabo badan inaad iska dhistid waa muhiim waxa kula talin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inay iska dhisaan qodobadaas aan ka soo hadlay oo ay ka mid tahay aqoon inaad leedahay maadi iyo diini inaad iska dhistid laba inaad iska dhistid cunto kariska si wali nooc waliba ay noqoto saddex inaad iska dhistid isticmaalka ereyada wanaagsan saddex inaad iska dhistid akhlaaqdaada ee aad isku dayid inaad markasta hadlaysid hadalkaaga uu noqdo mid wanaagsan oo u wanaagsan qalbiga zawjkaaga saddex inaad iska dhistid habka guriga loo hagaajiyo iyo sida aad maxayda u diyaarsan karto carabtiisa iyo wax waliba ay noqotaba waxaa rajeynayaa gabdho badan inay anfici doonto taladan tan wiilashana way kusoo gabi jirtaa